madaxii hore ciidamada qalabka sida ee dalka Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa waxa uu ku andacooday inuu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada ee dalkaasi ka dhacday. Guddiga doorashada ayaa wali si rasmi ah u shaacin natiijada, balse ninka doorashada kula tartamayay Sajis Premadasa ayaa waxa uu aqbalay in doorashada lagaga adkaaday. doorashadani oo ahayd mid lagu kala qaybsamo ayaa Mr. Rajapaksa waxa uu guul weyn ka soo hoyay goobaha ay ku badan yihiin dadka Sinhalesa, halka Mr. Premadasa uu taageero badan ka helay waqooyi bari oo ay ku badan yihiin dadka Tamilka. hadalkii ugu horeeyay uu jeediyay Mr. Rajapaksa ayaa waxa uu sheegay in uu hogaamiye u noqon doono dhammaan dadka reer Sri Lanka. dibadbaxayaasha Hong Kong iyo booliska ayaa isku dhacay afaafka hore ee jaamacadda Polytechnic ee ku taala Hong Kong. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay booliska ku tuurayeen dhagxaan iyo bambaanooyin laga sameeyay batrool. dibadbaxayaashani oo isku dayay inay xiraan goob isgoysa ayaa waxay booliska u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tuubooyinka biyaha laga tuuro. booliska Hong Kong ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah booliska uu ku dhaawacmay fallaar laga soo ganay dhanka dibadbaxayaasha. ciidamada Shiinaha oo ku jira xero u dhow goobta ay isku dhacyada ka socdaan ayaa waxay sheeda ka eegayeen sida ay wax u socdaan. kadib 2 maalmood oo dibadbaxyo ay ka socdeen dalka Iran ayaa waxay xukuumadda xadiday qadadka internetka. bog internet oo la socda macluumaadka adeegyada internetka ayaa sheegay in Iran ay wajahayso in gabi ahaanba la xiro internetka. markii horeysay telefishinka Iran ayaa ku eedeeyay warbaahinta ay ku tilmaameen cadow inay isticmaalayaan warar been abuur ah iyo muuqaalo lagu bumbuuninayo dibadbaxyada Iran iyo heerka ay gaarsiisan yihiin. agaasimaha mashruuc lagu magacaabo mustaqbalka Iran Barbara Slavin ayaa sheegaysa in saameynta cunaqabataynta aad looga dareemayo gudaha dalka Iran. A lot of investment has fled, foreign investment in particular. I think most worrisome for Iranians has been inflation. maalgashadayaal badan ayaa ka cararay gaar ahaan maalgashiga caalamiga ah. waxa ay ka walaacsan yihiin dadka reer Iran ayaa ah sicir bararka. lacagta Iran oo qiimo beeshay marka loo barbardhigo lacagihii kale. badeecooyinka Iran loo dhoofiyo ayaa noqday kuwa aad u qaali ah. waxyaabaha sida hilibka qiimahooda ayaa sare u kacay ilaa 60%. Imported goods have become very expensive. Things like meat have gone up in price by more than 60%. wadamada jasiiradaha koonfurta Basifikada ayaa waxa ay dardargeliyeen dadaalka lagu xakameynayo cudurka jadeecada oo ay u dhinteen 6 qof oo aan hore loo talaalin. ku dhawaad 1,000 kiis oo cudurkan jadeecada ayaa waxa lagu arkay jasiiradaha Samau iyo Tonga. howlaha talaalka jadeecada ayaa ka socda jasiiradda Samau, balse waxa ay markaasi ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka in halkaasi ay ka jirto gababsi dhanka kalkaaliyaasha caafimaadka. ugu dambeynna xukuumadda Taiwan ayaa waxay sheegtay in Shiinaha ay u soo direen maraakiib kuba xambaara diyaaradaha gacan-biyoodka Taiwan. Beijing ayaa waxa ay sheegtay in Beijing ayaa waxa ay sheegatay in Taiwan uu yahay gobol ka tirsan dalkeeda. markii horeysay madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa waxa ay ku xigeen u magacaawday in doorashada uu la tartamo doorashada sanadka soo socota nin hore ra'iisul wasaare uga ahaan jiray Taiwan oo isagoo hore jasiiradaasi ugu tilmaamay inay tahay mid ka madax bannaan Shiinaha.